Waxaan inta badan maqalnaa in jinni ama shayaadiin ay dhibaato u geystaan dadka gaar ahaan dumarka iyo carruurta, balse maanta waxa aynu ka hadli doonnaa waa guri caan ka noqday dalka Kuwait, kaasi oo ciddii soo degta ay waalanayso ama guriga laga gubayo. Sidoo kaleeta gurigan ayaa waxa uu soo maray marxalado kala duwan oo isugu jira in la dhiso, dayactir iyo weliba inay dad kala duwan iibsadaan. Guriga inta uu ka taagnaa halkaasi oo gaaraysa ilaa 50 sano ayaa waxaa la sheegay in dhammaan dhibaatooyin loogu geystay dadkii kala duwanaa ee soo maray gurigaasi. Sheekadani markii aan arkayay waxa ay ila ahayd mala awaal, laakiin markii aan dib u baaray ee warbixinadii laga qoray aan soo akhriyay waxa aan xaqiijistay inay dhacdadu dhab tahay kana dhacday waddanka Kuwait. Soo dhawow daawade, haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar, mahadsanid. Sheekadani markii hore ee aan maqlayay waxaan u haystay dhalanteed, balse baaritaano fara badan oo aan ku sameeyay kadib ayaa waxaan ogaaday inay dhab tahay. Mansuur al-Ajami iyo qoyskiisa waxa ay weli ku nool yihiin gurigaasi oo ku yaala xaafadda Al-Ahmadi ee magaalada caasimadda ah ee Kuwait, inkastoo in ka badan 40 jeer gurigooda uu gubtay ilaa markii ay soo degeen gurigaasi 6 sano ka hor. Waxa uu guriga u muuqdaa mid aad u qurux badan marka aad kor ka arkayso, laakiin gudihiisa ayaa waxa ay tahay mid cabsi kugu beerayso habeenkii markii la gaaro. Waxaa sidoo kaleeta guriga intiisa badan dhibaatooyin lagu geystaa dhammaan wixii dad ah oo gudaha u gala. Al-Ajami oo wareysi qaas ah siiyey wakaaladda wararka ee Al-Anbar ee ku soo baxda luqadda Carabiga ah ayaa waxa uu yiri guriga inta badan dabka ka kacaya waxa uu bilowdaa 11 saac ee aroornimo inta aanan salaad subax la tukanin ka hor. Waxa uu yiri muddooyinka u dhaxeeya inta uu guriga gubanaya waxa weeye muddooyin isbuucyo ah. Bil walbo markii la gaarana waxa aan xisaabinaa khasaarihii naga soo gaaray gurigaasi inagoo aanan aqoonin meel aan ka aadno iyo sidoo kaleete cid aan u dacwoono. Ajami oo wareysigiisa sii watay ayaa waxa uu yiri mararka uu dabka halkaasi ka kaca waxa aan isku daynaa in aan damino, laakiin waa uu naga awood badan yahay oo wax walba oo meeshaasi yaala si dhaqso ah ayuu ku baabi'iyaa. Waxa uuna yiri sanad walba markii la gaaro bisha May 5teeda waxaa guriga ka dhaca dab aanan inaba loo celin karin ilaa heer markii dambe aan gaarno in waaxda dabdamiska ee dalka aan wargelino 5ta bisha May markii ay soo dhawaato. Al-Ajami oo muddo 6 sano ah ku noolaa gurigaasi ayaa markiisii hore waxa uu ka iibsaday nin kaleeto oo isna reer Kuwait ah, kaasi oo muddo ku noolaa guriga balse aanan wax faahfaahin ah ka haysanin dhibaatada gurigaasi ka dhaxaysa. Waxa uu yiri Al-Ajami shuyuuq fara badan ayaan keenay, quraan ayaa lagu akhriyay, si walbana waa loola tacaalay, balse isbuucyo kadib arrinkii waa uu soo laabtaa waxaana dhaca khasaare weyn oo mar walba inaga nagu kooban. Waxa uu yiri markii ugu horeysay ee aan guriga soo galay waxa ay ahayd 5tii May 6 sano ka hor. Isla maalinkaasna waxaa dhacay dab qabsaday alaabtii aan guriga keensaday, waxaana uu dabkaasi kacay ayuu yiri subaxii hore inta aanan salaad subax la tukanin saacadu markay ahayd 5tii aroornimo. Waxaan u tagay culimadii masaajidka naga agdhawaa kuwaasi oo aan u sheegay in dhibaato iga haysato guriga. Waxaana isoo raacay ayuu yiri sheekh Sacuudiyaan ahaa oo la dhihi jiray Sheekh Mascuud bin Mursal. Waxa uuna yiri guriga waxa uu ku akhriyay quraan fara badan. Markii dambena waxa uu ii sheegay ayuu yiri in ay gurigaasi ku nool yihiin jinniyo wax dhibaato ahna aanan dadka bini'aadanka ah lafahooda u geysanaynin, laakiin markii la dhibo ama la dhibaateeyo xanaaqayo oo wax walba oo iyaga agtooda ka dhawaa dab ku dhajinaya. Ajami ayaa sidoo kaleeta waxa uu sheegay inuusan ilaa hadda garanaynin waxyaabaha dabka kicinaya, xitaa isagoo sheegay inuu guriga ka ilaaliyo in waxyaabaha taraqa ah ama gaslighterka aanan loo dhaweynin meelaha dabka qabsan kara. Waxa uu sheegay guriga marka uu keeno alaab fadhi ah ama firinjeero iyo sidoo kaleeta waxyaabaha kale ee guriga looga baahan yahay, maalin kadib dab ayaa la qabadsiiyaa oo alaabtii oo dhan waa ay gubataa. Waxa uu sidoo kaleeta sheegay dhacdo ka mid ah dhacdooyinkii isaga ka yaabiyey, taasi oo ahayd inuu carruurtiisa u soo gaday baagag iyo dhar uu ugu talagalay subaxa dambe inuu iskool ku geeyo, laakiin waxa uu arkay dharkii iyo baagtii oo la aruuriyey bannaankana la geeyey, taraqna la qabadsiiyey. Waxa uu yiri subaxii dambe markii aan soo kacnay waxa aan guriga bannaankiisa ku aragnay baagii iyo alaabtii oo dhan oo dab la qabadsiiyey. Waxa uu yiri waa aan la yaabnay, waxayna nagu noqotay arrin aanan filanaynin sababta oo ah guriga wax ka baxay ma aynan jirin oo aniga ayaa furaha haystay. Ajami oo wariyaha uu weydiiyey su'aasha ahayd adigu hadda maxaad ku fikiraysaa ayaa waxa uu ugu jawaabay anigu waxa aan bacaan ka noqday
waaxda dabdamiska agteeda sababtoo ah 6 bilood oo May ahaa oo la soo dhaafay 6dii sano ee hadda aynu ka soo gudubnay bil walba waxa aan wici jiray waaxda dabdamiska anigoo u sheegaya in gurigayga uu dab ka kacay ilaa markii dambe ay xifdiyeen adareskayga iyo dhammaan waxyaabaha aniga igu saabsan ayagoo ay weydiinin ayayna gurigayga si toos u imaan jireen waxa la weydiiyay waxyaabihii kugu yaabka badnaa inta aad gurigaasi joogtay maxaa ay ahaayeen waxa uu ugu jawaabay waxa aan la yaabay waxa ay ahayd markii inagoo gurigaasi 2 isbuuc kaliya joogna inaan maqalnay caruur qaylinaysa habeenkiina aan maqalnay qof dumar ah qaylideeda laakiin quraan fara badan oo aan akhrisanay kadib muddo ayay aamusnayd xilli dambe oo aan huradnayna waxa ay dib u bilowday qayladii ay qaylinaysay Al-Ajami ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in inta badan dadka deegaanka gurigaasi ay ku tilmaamayeen inay ku nool yihiin qaaruumo jinni ah kuwaasi oo inta badan aanan wax dhibaato ah gaarsiinin dadka lafahooda balse alaabada iyo wax walba oo gurigaasi la keeno jijibiyo ama gubo waxa uu sidoo kale sheegay habeenkii markii ay saaxdaan in albaabkooda la furayo jikadana raashin lagu karsado sidoo kaleete warbaahinta dalkaasi ayaa waxa ay warisay gurigani oo ku yaala wadada la yiraahdo Fourth Ring Road ee magaalada Kuwait inuu ahaa mid dhowr jeer dad kala duwan ay iibsadeen walow ilaa hadda aanan la garanaynin sababaha dadkii lahaa ay u iibinayeen waliba waxa ay sheegeen dhacdo kamid ah dhacdooyinkii gurigaasi soo maray inay ahaayeen in nin kamid ah dadkii iibsaday gurigaasi oo isku dayay inuu dayactir ku sameeyo laakiin maalinkii marka ay dhisaan ee laga kala tago habeenkii in la dumin jiray subaxina ay ka soo bilaabi jireen meeshii laga bilaabay sidoo kale waxa ay warbaahinta dalkaasi ku soo warantay in gurigaasi mar kamid ah mararkii u horeysay ee la dhisay in qaybo badan oo kamid ah gurigaasi dab la qabadsiiyay ayadoo uu dabkaasi baabi'iyay dhammaan saqafkii guriga iyo sidoo kale waxyaabo markaasi guriga dhexdiisa ku dhex jiray daawadayaal inta waxaynu ku soo koobaynaa sheekadii ku saabsaneed guriga ku yaala wadada Fourth Road Street ee magaalada caasimadda ah ee dalka Kuwait kaasi oo inta badan dadka wadankaasi ku nool ay yaqaanaan waliba noqday mid caan ka noqday wadankaasi iyo wadamada dariska ah kadib markii dhacdooyin fara badan oo isxigxiga laga soo tabiyay gurigaasi tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waa anigoo inkaga tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh